السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا دمانتين الصحابتا ميل كستا كسوغانتين كسو دوادا بيجكا برشدا لغدها iyo qaybta technology-ga kaabe technology and language meel kasta ku sugantihiin waan ku faraxsanahay kusoo biiridiina mudanayaal iyo marooyin kusoo dhawaada mar kale mowduuc kamid ah mowduucyadeeni ku saabsan luqadda Ingiriiska qaybaheeda kala duwan idil ahaantiin meel kasta naga daawanaysaan waxaa nagala socotaan Facebook page kaabe technology and language iyo YouTube channel kaabe technology and language sidoo kale Instagram waxaa nagala socotaan kaabe technology and language meel kasta naga daawanaysaan waan ku faraxsanahay daawashadiina mudanayaal iyo marooyin maanta waxaan mowduucan dib ugu soo celinay mowduuc oran ka soo hadalnay oo aan 10 badan aan ka soo duubnay laakiin kala dhinaa laakiin maanta dib baan soo wada bilaabaynaa ilaa bilow ilaa barnaamijna kama hari doono insha Allah waana ku dhameystiri doonaa hadii Allah wada loo golaado mowduucaas horaan soo duubay laakiin comment badan baa laga soo qoray oo ah inaanaysan 10 muuqanaynin oo aan si fiican loo arkaynin haddaan ba kala arkin barnaamijda okay imka waa aragtaan baan jeclahay sida hore uu dhaamay imka marka insha Allah waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay 100% inuu mowduucani arki doontaan oo si fiican idinku muuqan doono waa ku mahadsantiin daawashadiina meel kasta ku sugantiin mowduucana waxa la yiraahdaa interrogative pronoun-ki waa qaab su'aalayaashii qofku hadaanusan ku aqoonin ma u samayn karo practice-ka ama waxa weeyaan luqadii kuma uu hadli karo sidoo kale wax su'aalo ah kama samayn karo oo wax su'aalo ma samayn karo haddii su'aalaha eegto dhammaan waxyaabaha su'aalaha lagu sameeyo imtixaanada marka la diyaarinayo su'aalaha lagu sameeyo waxa weeyaan waa what ayaa lagu sameeyaa iyo kuwan halkan kaaga muuqda ayaa lagu sameeyaa oo la yiraahdo question pronoun ama relative pronoun baa la dhahaa ama interrogative pronoun hadba ka taqaano what iyo where iyo waxa loo yaqaano waxa kamid ah what ayaa kamid ah iyo where oo ah kuwa su'aalaha lagu sameeyo ama sida gaarka loo isticmaalo waxa kamid ah when marka la sameynayo waxa kamid ah which waxa kamid ah why waxa kamid ah who waxa kamid ah whom waxa kamid ah how many waxa kamid ah how much waxa kamid ah how waxa kamid ah can waxa kamid ah whose kuwaas ayaa kamid ah dhamaantood waxa lagu sameeyaa wada su'aalaha ayaa lagu wada sameeyaa hadda imtixaanada fiiriso kuwa dawladda soo diyaariso iyo kuwa aan soo diyaarinba iyo kuwa dadka magaalada joogaaba ay soo diyaariyaan waxa weeyaan dhamaantood su'aal sameeyahan ayaa lagu sameeyaa halka kaaga muuqda sidoo kale marka waxa weeyaan hadalka la sameeyo ama luqadda lagu hadlayo Ingiriiska waxa weeyaan kuwan ayuun baa lagu hadlaa ama luqadda lagu sameeyaa qofka waxa lagu weydiiyo ama si kale waxa loo isticmaalo kun ayaa waxa weeyaan lagu sameeyaa mowduucana maanta waxaan rabnaa inaan cashka kaga hadalno sida darteed ku soo dhawaada taanan san bilaabinin waxaan ka codsanayaa inaad mowduuca aad like garayso channel-kana aad subscribe ku samayso waad mahadsan tahay waxaan ka hadlaynaa mowduucana aan ku saabsan yahay interrogative pronoun lesson 1 ayaan soo qaadanay what oo macnaheedu yahay maxay iyo lesson 1 ayaan isla qaadan doonaa soo dhawaada magacaygu waa Sharmaarka Caraale Jaamac Aalab waxaan idin socodsiyaa luqadda Ingiriiska qaybaheeda kala duwan ee ku soo dhawaada mowduucana what's user what maxaa loo isticmaalaa marka waxaan sameeynaa in su'aaliina marka hore example aan ka siiyo isla markaana waxa weeyaan hadhowna aan as a dialogue oo kale aan wada sheekaysan aan kugu tusiyo marka what's user what maxaa loo isticmaalaa wadi waatan what maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa asking weydiin questions su'aalo ayaa loo isticmaalaa for information or warbixin ayaa loo isticmaalaa about ku saabsan something wuxuun ku saabsan ayaa loo isticmaalaa qeexidiisa marka watan asking or weydiin question su'aalo for information ama warbixin about ku saabsan something wuxuun ku saabsan example tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa what's your name magaca ayaa wad loo soo qaadan karaa watan wad halkan lagu soo isticmaalaa what's your full name waa maxay magacaaga buuxa what's your full name magacaaga buuxa waa maxay
what's your job waa maxay adiga shaqadaadu what's your nickname waa maxay adiga naanaystaadu what's your nationality waa maxay adiga jinsiyadaadu what is the name waa maxay magaca of your school ee schoolkaaga what's your mother's name hooyada magaceed what's your father's name aabaha magaci what's your aim please fadlan waa maxay ujeedkaagu marka ay dhamaan wad ayaan isticmaalayna xagan wad dhamaantood xagan wad ayaa inoogu wada qoran oo aan su'aasha inoo ku samaysanaysa example ka fiican aad u fahanto oo aad aragto what do you want from me maxaad aniga hadda iga doonaysaa what do you want from me maxaad iga doonaysaa and okay what is the problem now waa maxay dhibka hadda what is the problem now waa maxay dhibka hadda what do you have for me maxaad aniga ii haysaa what do you have for me maxaad aniga ii haysaa what is the advantage of making conversation waa maxay faa'iidada conversation ka ama wada sheekaysiga what is the advantage of making conversation waa maxay faa'iidada conversation ka so waxaan maaleeyaa marka mawduuca qaybtan inaad fahantay next oo ku soconaynaa qaybta wada sheekaysiga marka mawduucan wuxuu ku saabsan yahay intan ayuu ku saabsan yahay oo what maxay weeye where-na waa xagee when waa goorma which waa kee ama tee laakiin shay baa lagaga hadli doonaa why-na sabab weeye who waxa weeye kee ama tee laakiin waa qof whom kuma ama tuma how many imisa how much iyadana waa imisa how sidee ayaan iyadana ku baran doonaa kan awoodid weeyada ama karitaan whose-na waxa weeye kuma iska leh ama yaa iska leh mawduucyadeenu kuwaas ayay ka noqon doonaa insha Allah marka kan mawduuca koowaad ayaan soo qaadanay maanta ka hadli doonaa kana mawduuca labaad ayaan kaga hadli doonaa insha Allah waa mawduucyo aad u muhiim ah kuwa aan aad u jeclahay insha Allah marka hadda waxaan ka rajaynayaa inaad waxa weeyaan ila jaan qaado aad barato hadda waxaan sameeynaa as a dialogue interrogative pronoun-kii qaybtii wada sheekaysiga ahayd ayaan samayn doonaa su-aashii iyo jawaabtii ee as a conversation ahaan ayaan u samayn doonaa lesson 1 ashka koowaad interrogative pronoun-kii marka wadii waa tan halkaan ka soo qaadanay wuxuu horreysay what is your name magaca what's your name magaca waxaan leenahay my name magacaygu is waxa weeye hebel halkana magacii lagu qoraya my name is hebel magacaygu waa hebel what's your full name waa maxay magacaaga oo buuxa what's your full name waa maxay magacaaga oo buuxa my full name magacayga oo buuxa is waxa weeye waa hebel halkaas ma laba saddex magac la gelinaya what's your job waa maxay adiga shaqadaadu what's your job waa maxay shaqadaadu aniga waxaan ahay jobless bila shaqo ayaan ahay because maxaa yeelay I am a student waxaan ahay arday ayaan ahay I am a student waxaan ahay arday what is your nickname waa maxay adiga naanaystaadu what waa maxay is your nickname adiga naanaystaadu maxay tahay my nickname naanaystaydu is waxa weeye lion libax ayaa la dhahaa what's your nationality waa maxay adiga jinsiyadaadu what's your nationality waa maxay adiga jinsiyadaadu my nationality jinsiyadaydu is waxa weeye Soomaali weeye jinsiyadaydu my nationality is Somali jinsiyadaydu waa Somali what is the name waa maxay magaca of your school schoolkaaga magaciisu waa maxay the name magaca of my school schoolkaygu is waxa weeye Chamber Primary and Intermediate and Secondary School ayaa la dhahaa what is your mother's name hooyada magaceed my mother's name hooyada magaceedu is waa hebla ayaa la dhahaa what is the name what is your father's name aabaha magaci what's your father's name aabaha magaci my father's name aabaha magaciisu is waa hebel ayaa isla la dhahaa qof walba meeshii la gelin lahaa magaciisa waa baneeyay what is your aim please waa maxay adiga ujeedkaagu what's your aim please waa maxay ujeedkaagu my purpose aniga ujeedkaygu is waxa weeye to share inaan kula wadaago a chat wada sheekaysi with you adiga inaan wada sheekaysi kula wadaago ujeedkaygu weeye marka aim waa ujeedo ama waa danta uu qofku uu leeyahay oo waa base sidoo kale ereyna waa advance oo purpose waxa weeye waa ujeedo iyaduna waa advance haddaan si kale kugu dhigo ereyna waxa weeye waa formal kana waa informal marka my purpose ujeedkaygu is waxa weeye to share inaan kula wadaago a chat
wada sheekaysi with you adiga inaan wada sheekaysi kula wadaago tadxule what is the advantage wa maxay faa'iidada of making conversation ee laga helayo wada sheekaysiga faa'iidada laga helayo waa maxay conversation wada sheekaysi waxa uu leeyahay many advantage many benefits faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay brother walaal faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay macnaha we can't tell you this time but I can tell you it has a many advantage and many benefits what do you have for me maxaad aniga ii haysaa what do you have for me maxaad aniga ii haysaa anigu waxaan ku hayaa many things waxyaabo fara badan ayaan ku hayaa for you adiga waxyaabo badan baan ku hayaa what do you learn maxaad digataa what maxay bad do you adigu learn aad digataa anigu learn waxaan dhigtaa English language luqadda Englishka ayaan dhigtaa what are you doing now hadda maxaad qabanaysaa what are you doing now hadda maxaad qabanaysaa anigu am talking waxaan la hadlayaa to you adigaan kula hadlayaa now hadda adaan kula hadlayaa what maxay bad do you adigu want iga doonaysaa from me aniga maxaad imika iga dooni anigu waxaan doonayaa taaskin aan ku weydiiyo iyo adiga some xooga questions su'aala and making a practice and make a practice sidoo kale waxaan rabaa inaan adiga aan wada sheekaysan kula sameeyo okay waxaan ka soo hadalnay interrogative pronoun-ka what ayaan ka soo hadalnay tusaalayaalna ayaan u soo qaadanay qaybna wada sheekaysi ayaan u soo qaadanay insha Allah inaad fahantaan marnaya mawduuca what's your name my name is dash magaciibaad gelinaysaa what's your full name my full name is hebel 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 what's your job I am jobless because I am a student what is your nickname my nickname is Lion what's your nationality my nationality is Somali what is the name of your school the name of my school is Chamber what is your mother's name my mother's name is what is your father's name my father's name is what is your aim please my purpose is to share a chat with you what is the advantage of making conversation conversation has many benefits brother what do you have for me I have many things for you what do you learn I learn English language what are you doing now I am talking to you what do you want from me I wanted to ask you some questions and make a practice inshallah warjeenayaan mawduucan aad ka heshay fadlan mawduuca la wadaaga asxaabtaada sidoo kale mawduuca la galay channelkana sidoo kale inoo subscribe garay YouTube iyo Instagram naga soo follow garay mawduucyadana noo soo like garay oo kor soo qaada inshallah waxaan booqda waxaan baraha bulshada userska kale ka isticmaalno ee Facebook oo waxaan kor soo qaado soo kiciya asxaabi aad iyo aad ay u mahadsantiin intii cusub soo dhawaada intii hore loo joogtayna waa mahadsantiin aad iyo aad madaxa noo saarantiin waan idin jecelnahay aad iyo aad ayaan idin salaameynaa intan mawduuca isugu iman doono waxaan ka rajeynayaa in mawduuca aad like garaysay channelkan aad subscribe garaysay Facebook-na aad iga soo follow garaysay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay inta aad ii samaysay thank you very much intan mawduuca isugu iman doono mar kale waa shamaarka caraale jaamac idinkaga tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu